subeer awal meel uu isugu yimid oo uu ku shiray oo uu yidhi aynu cid ku aflagaadayno inaanay jirin iyo garool uu ku ballamay subeer awal horta maanta muu dhalan waynu ku dhaqannay waynu ku dhalannay waa ka soo jeednaa laakiin somalilan oo nabada ayayna deeqda odayaal meel iskugu tegey oo NGO-ya oo waxa weeyaan magaca subeer awal adeegsanaya gudoomiyaha cusub Axmed Haybe Cali Raage isagana waan hambalyeynaya xilka lagu igmaday Allah kugu astro ilaahay ha ka dhigo kii deegaanka deeqa dalkana deeqa Allah ha ka dhigo gudoomiye Axmed kollayde kumu iman si fudud waa gudoomiye la soo shirabay oo odayaasha deegaankana wax laga weydiiyay gudoomiyii horena waxa weeyaan isagana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro uu soo shaqeeyay wax badan buu soo qabtay isagana waxa weeyaan nin waliba deegaankiisa wuxuu u qabto taariikhda ayaa xusi doonta waxaan kale oo aan maadaama madaxdii qarankuna ay qayb ka mid inala joogto ugu horeeyo barasaab ku xigeenku waxaan xasuusinayaa waxa leeyahay gudoomiye degmadan la yiraahdo Dacarbuluq waa degmo ballaaran waxay u baahan tahay baahiyaha aasaasiga caafimaad bay u baahan tahay waxbarashada in halkii laga sii qaadaa bay u baahan tahay waxay u baahan tahay master plan bay u baahan tahay oo dhammaystiran degmadani kama tirsanaa gobolka saaxila waxay ka tirsan tahay gobolka Maroodi Jeex xaq waxay u leedahay inay hesho waxa ay degmooyinka kala helaan dhammaan wasaaradaha jamhuuriyadda Somaliland ee uu galwadeega ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo u dhagan nugul dadkiisa iyo dalkiisaba waxaanu farin dheer u diraynaa wasiirada qarankan maanta waxa weeyaan taabagalay in ay wasaarad waliba degmadan Dacarbuluq ay ka furato xafiis si bulshada loogu adeego marka la helo agaasimayaal iyo dhiijiyo degmada jooga hooyadow waxa weeyaan way ka adeeganaysaa hadday beeraha noqoto hadday caafimaadka noqoto hadday waxbarashada noqoto waa in degmadan laga helaa ciddii wasaaradahan matalaysay oo waxa weeyaan degmadan waa degmo ballaarane matalaan dhab ayaanu u baahannahay annagoo ku hadlaynaa afka shicibka degmada Dacarbuluq waxaan kaloo halkan isagana aan kaga faa'iidaysanayaa maadaama uu soo joogo mas'uulkii dawladaha hoose sida aanu u soo shirabnay gudoomiyaha degmada Dacarbuluq waxaan u baahannahay degmada Madheerana way cadilan tahay baahida halka ka jirta ayuuba halkaana ka jirta waxaan u baahannahay in cid aqoon inay dadka ay hagto maadaama madaxweynuhu taabageliyay inuu dhalinyarta wax baratay xukuumaddan ay ka qayb noqdaan inta markaa ka gudbo maanta waxaan u hooladay inaan hal iyo laba ka idhaahdo walaalayaal horta marka ugu horeysa Somaliland waa Somaliland waxa deeqa waa nabad ayaa naas la nuugale bariyahan waad maqlayseen odayaal meel iskugu tagay oo NGO-ya oo waxa weeyaan magaca subeer awal adeegsanaya subeer awal horta maanta muu dhalan waynu ku dhaqannay waynu ku dhalannay waa ka soo jeednaa laakiin Somaliland oo nabada ayayna deeqda waxaan halka ka cadaynayaa anigoo ku hadlaya afka dhaqanka inta caafimaadka qabta odayaasha halka tagay ee la subeer awal baanu nahay subeer awal meel uu isugu yimid oo uu ku shiray oo uu yidhi aynu cid ku aflagaadayno inaanay jirin iyo garool uu ku ballamay subeer awal reerka la yidhaahdaa qofka bilaadanka laf dhabarta ayaa isu haysa subeer awal waa laf dhabarta Somaliland qofkana hadday laf dhabartu xumaato cid meel waliba way xumaanaysaa subeer awal dawladdan isagaa leh waa halbowlaha waxa weeyaan Somaliland ay ka duusho uma baahnaa farafarayn qaran bayna deeqa qabiilinama deeqo dhammaantiin waa idin salaamaya madaxda qaranka halkan iskugu timidna waan salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya gudoomiyaha ilaahay garabkiisa ha galo